waxay dhacdaa mararka qaar in ay ku soo biiraan noloshaada qof bini aadan aad u baahneen laakiinse aad u malaysid in aad u baahan tahay dadkaas ayaa wajiyo badan ay dunida ku korleeyihiin kuna isticmaalaan balse qof yaqaana ma lahan wajiga ugu badan ay adeegsadaan waa wajiga masaakiinnimada mar alla markii aad la kulanto habeenay ama qof dumara haddana ilmo yar haysto ilmahaas awgoodane adigu ugu beer jilcaayo ee ayadana danaheeda qaaska kuugu fulisato aad ay u xanuun badan tahay channelku waxaan ku soo gudbiyaa sheekooyin xiiso badan qisooyin xaqiiqo ah falogyo oo ayagana ay la socdaan qisooyin oo aad u xiiso badan waxaan si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe ii saarto adigoo mahadsan soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القارئة ولاشن زيو إذن الله أنا وعافمات قوا ميلو البدن داك جوكتان وحاني رجينيا إن أطيع عافمات قبطان هبيني لغو مقعا والسارة هيستو ويل أفرجيرة أيامات قصدين وقصعطا مرة والبقيا وحان إذن سو قد بيا فردن بيت أو دلل أبدينهين كو أوغو بضان إذن سو تبي أي وحيين إن دمر جيستان بالسمانتو وهبيني afduubatay ilmaheeda yar sabab ee u afduubatay maxay si ka faa'iiday fiidiyogan ayaan idinkugu faahfaahin doonaa soo dhawaada dad yoo fara badan ayaa jiro idaawado haddana aan subscribe ii ahayn please waxaan idinka codsanayaa in aad channelka subscribe aad dhahdaan si aan guusheena u gaarno hooyadan ayaa waxaa lagu magacaabaa Saara wiilkeedana waxaa lagu magacaabaa Mustafa Saara ayaa waxa ay baratay ninkaas ay wixii u baratay si ay danaheeda qaaska ugu fulato balse asiga warb kama hayo waa hooyo haysato ilmo yar asigoo taa ugu naxariisanayo ayuu gabadhii wuxuu noqday mid marka dambeys u soo dhawaado saacido يعني مرarka qaar weydiyo oo waxa ay u baahan yihiin in ay banaanka oo u wado in ay yani gabadhii oo mar walba oo u soo dhawaado kana dhigto saaxiib balse Saara ninkan barashadiisa ay xalka dhax aragtay mar alla markii ay aragtay in ninkan oo yahay qof daacada ayadoo oo marka daacadnimadiisa ka faa'iideysanayso ayeen hadallo naxariis leh hadallo yani oo calooshiisa gubi karo ee ninkii ku soo jiido maadaama oo wiilka yar oo ku bartay wiilkaasna oo ku ixtiraamayo ayadan ee dareensan tahay ninkan in oo yani cunuga aad oo ugu naxariisanayo oo ay aragtay ayeba ka dhax samaysatay waxay bilowday inay u cabaado ay ku tiraado aabiis waa hantiile lacag fara badan ayuu haystaa magaalada waa nin laga yaqaano haddana wax lacaga ugu masiyo qisadeena maanta ay waxa ay ka dhacday xaafad lagu magacaabo Sharqiya maalmaha waxaan dhex deganaan doonaa isla xaafada Sharqiya mutalo mar ma soo booqda waaba meel cabsi alcamow meeshan waxaaba ka socdo daneysi qaasa qoftaan ninkan barashadiisa way ku faraxsan tahay sababtoo ah danteeda ayay ka dhax aragtay markii ugu dambeysay ay wixii ku tiri soo dhawow waa ogahay in aad saaxiib ila tahay oo wiilkayga yarna aad igu ixtiraamayso wax walba oo caloosheeda ku jirina waa aan ku sheegay maanta wax aan ka qarsanaa ilaahay uunti malahan aniga duruuftan aan u jeedid ayaa ihayso ninkan cunuga uu dhalayna waa nin lacag leh laakiinse haddii aad tahay qof iga naxayo oo maaragtay ii beerjilcaayo baliis waa ku baryaa halkan codsi ii fuli isla ninkii uu soo booday okay uu ku yiri waa aan ku fulinayaa laakiin soo dhahay maxay tahay markaasay wixii ku tir wiilkeyga Mustafa wad 3 maalmood ka qari banaanka ha kula joogo kadibna aabiisa waxaad ku dhahdaa arintan wax booliisa ma gaarsii kartid wiilkaaga ayaan ka dilaa si aan lacag u helo okay ayuu ku yiri intaas aha ma waxa siriskaha oo intaas leeyaha intaas inka badan baa iga istaasha maadaama oo ninkan uu yahay nin baqiila ilmiis yarna aan lacag siineynin woobo yani istaahila maba ogobo naagtan ilmaha yar in lagu biilo hatta ay ku qaadato biil dhabala balse asigana ay ku qiyaanayso isleedahay lacagtaas badan hal markii lagu siiyay arrimo badan ku fulso ninkan waa iska daacada cunugii ay cunugan way is yaqaaniin weyn u sheegtay wixii ku tiri waxa ku imaanayo hebel
kadibna raac isla waqtigaas hooyadii way soo baxday way qaylisay waxayna ku tiri ma aragteen wiilkayga ma aragteen Mustafa aaway war Mustafa aaway asxaabtiisa ay waxay ku dheen hadda camo waa waday camo yuu ahaa ya camo imaadii waday ilmaha dadka waaweyn ama adeeray dhahan ama abtii dhahan kadibna aabeed oo waayeela ayaa guriga dhinac ka joogo aabaheed ayay taleefanka ag dhigtay si loo soo waco oo loo weydiisto lacag badan lacagtaasna la gaarsiiyay isla waqtigaas aabihiis cunuga okay taleefankii yaa soo dhacay markaas ay wuxuu ku yiri cunuga aniga haayo hadalkiisa fiican u dhageysta wiilkaas waxaan ku rabaa half million oo lacag half million oo lacag hadii lee sii waayeen hal iska jiro teeda kale cunugiina hadda ku fikirtiin in arintan askar soo gelisaanne asay u dhamaanay naagti way soo isiinay way fahansantahay waxa soo ayada ka dambayso waa hadaladeedii kadib aabiya la wacay aabiya waxa la dhahay half million iska keen waa heli kartaa soo raadi maxaa la sameeyna hadii arintan oo yaani gaarsiisa dawladda way noo dhamaanay cunugeena waa la dilaa aabiya hooyadii iyo awoowi waxba ma ogo marka cunugiis yar bisu u fikiraa awoowi iyo islaanta markuu hadalka ka soo dhageystay waatu iska soo baxaybo soo u sii socday askartii u tay wado sax ayuu qaatay hadii uu wadadeedii oo warkeeda maqli lahay oo laalaab samee lahay cunugiisa in uu ku waayo ayaa macquul noqon lahayd laakiin hadda wuxuu qaatay wado sax askartii ay arintii soo gashay laakiin gabadhi wax ma og waxay isleedahay lacagtaadii ayaa lagu keeni doonaa isla waqtigaas ayaa waxa la raadiyay wiilka meesha ugu dambeysay wiilkii in ninkan waday oo guriga iridiisna asoo ciyaal la ciyaara in uu ugu imaaday ee israaceen wax waqtiyaaba kuma aysa qaadan askartii isla waqtiina waxay soo ogaadeen gurigii oo cunuga lagu hayay askara loo soo dejiyay kadibna waa la baaray markii la baaray ninkii waa kan qalqalay wuxuu ku yiri arintan intaan inay soo gaarto ma rabin intaan dhanne yaani in soo fargishateen aslan maba loo baahneenbo arintan oo dhan waxa banu kaliftay bo ninkan baqiilka oo ilmiis yar lacag siineenin teelka heesta lacag okay asigin wuu sheegay xodaan hooyadiisa ay ugu calaacashay cunugoona nin afduwan muusan ahayn oo ila cunaa oo ila cabaay meeshan iska dheedheelay aniga iyo hooyadiisna dad isla og oo isla shaqeynaa ahayn arintan wax aan yaani amniga aan qalqal ku gelineen muusan ahayn sida ula socdo ninkii bari inuu iska yahay la arkay naagtan qayaano leeyahay kadibna hooyadii ayaa bartii lagu xiray aabihiina cunugiisii ayuu soo watay wuxuuna ku dacweeyay isla xiligaas in ay hooyadan tahay hooyo qeyr mas'uula aan cunug hii karin markii la ogaaday inta oo biil ku bixiyo bishiina waxaaba suurta gashay in hooyas cunug gacanteeda laga soo celiyo maxkamadeen kadib qisadeena intaan ayaan ku soo gabagabeenayaa hadaad hore u maqli jirtay waxbadsi wax beel ay leedahay waa tan oo kale ayadoo biil qaadato ay wixii ku fikirtay in ay lacag qayaano ku hesho ama badsato balse cunugii ee biilka ku qaadanaysay ayay ku weysaybo هذا هوري إلى جوكتي وكما سنتهي داوشة الفيديو كان هذا يقول عصبتها فضلا سودو channel قوات channel كاغا سبسكرايب ده فرقم بلدك سيقول كود عفين وحوال بقي زيو سو دكتوراش زيو كله دونيدوا وحير إيقاوين سيساو انتا عنو بحسابين كهور باي باي